السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أحبتي في الله، waxaan doonayaa inaan wax yar ka tilmaamo fadaaisha bisha Shacbaan. Bisha Shacbaan waa bil aad u barako badan, waa bil aad u fadli badan. Bishani nabiga sallallahu alayhi wasallam mar Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu nabiga wuxuu weydiiyey baa wuxuu yiri nabi Allah maanan arag lam araka tasuumu shahran ma tasuumu min Shacbaan قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أسامة بن زيد رضي الله عنه النبي وحويدي صلى الله عليه وسلم النبي الله maanan arag bil aad ka soon badan tahay bishan Shacbaan. Arrintu maxay tahay? Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bishani waa bil marka dadka dhan ay marka aysan faa'iidada ku jirto ogeyn ay isla marka ay ka dhacsan yihiin. sidaa darteeda bishani waa bil aad u fiican. bishanna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa camalka ibn aadam dhan loo rafciyaa. Anigana waxaan jecelahay camalkayga in Ilaahay loo qaado oo Ilaahay loo horgeeyo anigoo sooman. Marka ikhwaani, bishan waxyaabaha looga qayb qaadan karo faa'iidooyinka iyo siyaabaha looga faa'iideysan karo waxaa kamid ah in qofka uu soon markaa kaga qayb qaato. Barakallahu fiikum. Fadliga bishan weli iyo faa'iidooyin ku jira waan sii wadi doonaa. Ka faa'iideysa